Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal idilaantiinba meel walba ood joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka nuxurka dhacdooyinka qodobadaad caawa oo maqli doontaan waxaa ka mid ah xildhibaan ismaaciil cabdi kerow oo ka tirsan golaha wakiilada dowladda jubbaland ayaa ka hadlay dhibaatada xasan sheekh maxamuud uu ku hayo deegaanada jubbaland iyadoo xildhibaanka shir jaraa'ideed uu ku qabtay magaalada kismaayo uu kaga hadlay qodobo dhowr ah iyadoo faahfaahsanna barnaamijka ayaan idinkugu haynaa booliiska soomaaliya oo soo bandhigay dhallinyaro lagu eedeeyey faafinta anshaxumada iyadoo barnaamijka aad ku maqli doontaan faahfaahinta dhallinyaradaasi iyo waxa ay kala yihiin iyo qodobada lagu soo eedeeyey baarlamaanka carabta oo cambaareeyey faragelinta israa'iil ee soomaaliya iyo dalalka carabeed booliiska london oo xiray nin asal ahaan soomaali ah kadib markii uu gaari jiirsiiyey dad lugeynayay xiisadda ka taagan maranbiyoodka hormus oo cirka isku sii shareertay iyo maraykanka iyo iiraan oo isku hanjabaya iyadoo duqeymo dhowrana ay dhaceen isku soo noqod wanaagsan dhegeystayaal haddii aan ku horumarno qodobkeena ugu horreeya ee caawo xildhibaan ismaaciil cabdi kerow oo ka tirsan baarlamaanka dowladda jubbaland ayaa ka hadlay dhibaatada xasan sheekh maxamuud uu ku hayo deegaanada jubbaland waxaana markaasi uu sheegay in saraakiisha ciidamada jubbaland in ay si dhow markaa ula socdaan dhagarta xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya uu la damacsan yahay shacabka iyo dowladda jubbaland xildhibaan kerow ayaa ugu baaqay shacabka ciidamada iyo saraakiisha jubbaland in ay markaa sii laba jibbaaraan dadaalkooda ay ugu jiraan sidii ay uga hortegi lahaayeen dhagarta noocaas oo kale ah waxaana markaasi uu xildhibaanku ku faanay in ciidanka dowladda jubbaland iyo dowladdaba ay aad ugu xeeldheer yihiin islamarkaana ay yihiin khabiiro ku aadan inay ka hortagaan cid kasta oo damaacisa islamarkaana hunguriyeysa danaha iyo qadiyadda dowladda jubbaland madaxweyne axmed maxamed islaam ayuu markaasi ku ammaanay sida xilkasnimada leh ee odaytinimada leh uu hoggaanka ugu hayo shacabka iyo dowladda jubbaland waxaana markaasi uu ka codsaday in uu madaxweynuhu dadaalka iyo juhdiga ugu jiro uu ku sii ama uu sii xoojiyo islamarkaana waxa uu eebbe uga rajeeyo cumri dheer iyo cibaado suuban iyo sidoo kale inuu ku guuleeyo dadaalka iyo juhdiga uu ku bixinayo arrimaha markaasi khayriga ah ee uu dadka reer jubbaland u hayo in maaragtahay foojignaan badan aad muujisaan cadowga waa wareeganahay waqtigiisa dhammaaday xasan sheekh maxamuud meel kasta oo ku dhex jira weli haree waa laga yaaba nin isqarinaya jira kii isqarinaya waxaa saan xusay maxkamadda hala soo taaga xabsiga baartay hala dhigi wax asxaan loo samaynaya ilaahay abuurtay ma jira haddiiba nabaddiiba laiskugu imaado inaan barakacna maanta kenya ma aadan karna etoobiya ma aadan karna waa inaan nabad waddanka inaan nabad aan ka dhiganaa dagaalkii al-shabaab waan ku jirna annaga ciidamadeena maalin kasta ay dhimanahayaan al-shabaab xasan sheekh maxamuud waa iska dhaafi xasan lacagtii waddanka maaragta gurihii uu dumay lacagtii ayaa meeshii maaragta masaakiinta loo qeybi lahay isagoo u dhacay ayuu lacag maaragta askariga intuu soo waca wuxuu leeyahay maaragta hebelow intaas qaaday saas inta wax ma yeeli kartaa isku qabiil ma nahano cid aan isku qabiil lahay ma jira ninkii nabadooda ayaa isku qabiil lahay annaga ninkii nabadooda isku qabiil lahay soo sheega waxyaabaha maaragta waxbarta shirka meelaha maaragta ay gelinaya inaad soo sheegtaan kuwaas ayaga haddii baxaan bas xasan waa u dhamaatay taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan waaxda c i d da ama dembi baarista ayaa warbaahinta u soo bandhigay 10 nin oo dhallinyaro ah oo lagu eedeeyey inay baraha bulshada ku faafinayeen waxyaabo uu booliisku ku tilmaamay kuwo ka hor imaanaya diinta islaamka iyo dhaqanka soomaaliyeed dhallinyarada lasoo bandhigay waxaa ka mid ah nin markaa isku magacaabay wasiir shabalaaza oo youtuber ah islamarkaana youtube-ka ama baraha bulshada caanka ah kaasoo lagu eedeeyey in uu baahin jiray muuqaalo ay booliisku ku sifeeyeen kuwo anshaxumo ah oo xambaarsan fikrado qallifsan iyo kuwo dhaqan xumo ah qaarkood ayay booliisku sheegeen inuu yahay nidaam markaasi qowmuluudnimo ah afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa sheegay in baaritaano lagu hayo dhammaan eedeysanayaasha isagoo oo xusay in loo xiray falal la xiriira faafinta waxyaabo karana anshaxa guud diinta islaamka iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed booliiska ayaa sidoo kale sheegay in tirada dadka lasoo xiray ay gaarayso 10 xubnood islamarkaana baaritaanadu ay weli socdaan iyada oo la filayo in la horgeeyo hay-adaha garsoorka marka baaritaanadu ay soo dhammaadaan
maalmihii u dambeeyey waxaa sii kordhayey howlgallada ay ciidanka booliiska Soomaaliyeed ku beegsanayaan dhalinyarada lagu eedeeyey faafinta waxyaabaha markaasi ay ku tilmaameen anshax xumo baraha bulshada markaa ka jirtay. Booliiska ayaa sheegay in howlgalladan ay qayb ka yihiin dadaallo lagu ilaalinayo anshaxa bulshada, diinta Islaamka iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed, iyadoo la tilmaamay in cid kasta oo lagu tuhmo falal la mid ah kan inay la kulmi doonaan tallaabooyin waafaqsan sharciga. Nin 34 jir ah oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya haystana dhalashada Britain ayaa la xiray kadib markii gaari uu waday uu ku jiray dad lugeynayay oo ku sugnaa degmada Ealing Broadway ee magaalada London ee dalka Ingiriiska. Sida ay sheegeen booliiska London, 5 qof ayaa ku dhaawacmay dhacdadan iyada oo dhammaan dhaawacyada lagu tilmaamay kuwo markaa halis ay ku jirto noloshooda iyada oo markaa la badbaadinayo. Waxaana markaasi dhacdadaasi ay noqotay mid aan fariir ku riday dadka ku nool magaalada London, gaar ahaan degmada markaa lagu magacaabo Ealing Broadway. War-saxaafadeedka booliiska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in darawalku uu goobta ka baxsaday kadib wax yar markii lagu qabtay deegaanka Grange Park, waxaana loo xiray tuhun la xiriira wadis khatar ah iyo isku day dil ah. Booliisku waxa ay sheegeen inay baarayaan dhammaan suurtagalnimada sababta dhacdada, hase yeeshee ilaa iyo hadda aan loo aqoonsanin fal argagixiso. Dhacdadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo Britain ay ka socdaan doodo la xiriira socdaalka iyo dembiyada ay ku lug leeyihiin qaar ka mid ah dadka soo galootiga. Toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa dhacay dhacdooyin kale oo rabshado wata, kuwaas oo sii hurinayay dooda ku saabsan amniga iyo socdaalka gudaha dalka. Waxaana markaasi dadka Soomaaliyeed qaar lagu eedeeyey kuwa argagixiso ah, iyada oo dalalkii caalamka ee gaar ahaan Yurub iyo Ameerika oo siiyey fursado soo galootinimo ah, sharciyo iyo degenaansho markaasi deegaanadooda ama dalkaasi ah, ay hadda la kulmayaan dhibaatooyin dadkii ajaanibta ahaa ee dadkaasi magangelyada siiyey kadib markii ay noqdeen argagixiso iyo kuwo markaasi daroogistayaal ah oo dadka meel walba ay ku arkaan biraynaya ama xabad la dhacaya. Taas oo dadka markaa caddaanka ama reer galbeedku ay aad uga anfariirayaan, islamarkaana ku kaliftay inay dad badan oo Soomaali ah ay ka soo tarxiilaan oo ka soo fiijiyaan dalalkooda. Dhanka kalena, wafdi heer sare ah oo ka socday aqalka sare ee baarlamaanka federaalk ee Soomaaliya ee waqtiga uu ka dhammaaday ayaa ka qaybgelaya shirkii 8aad ee baarlamaanka Carabta iyo guddoomiyayaasha baarlamaanada Carabta, kaas oo lagu qabtay xarunta Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira ee dalka Masar. Wafdiga Soomaaliya ee markaa baarlamaankii hore ee waqtiga uu ka dhammaaday ee dowladdii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee sida sharci darrada hadda u dhex jiifa madaxtooyada Soomaaliya waxaa hogaaminayay Senator Cabdulxakiim Macalin Axmed Maalin, oo khudbad markaa ka jeedin doona shirka lagu soo bandhigayo aragtiyaha kala duwan ee ku aadan dalalka markaa laysku yiraahdo waddamada Carbeed. Shirka ayaa sidoo kale ansixiyey qaraaro dhowr ah oo ay ku jiraan qaraar ku saabsan Soomaaliya, kaas oo si adag u cambaareeyey ka qaybgalayaashu ku tilmaameen faragelin iyo xadgudubyo Israa'iil ka wado dalalka Carbeed, gaar ahaan Soomaaliya, Lubnaan iyo Suuriya. Qaraarka ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la ixtiraamo madax-bannaanida dalalka, wadajirkooda dhuleed, sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay. Go'aanada iyo talooyinka ka soo baxay shirka ayaa lagu gudbiyey madaxda dowladaha iyo xubnaha Carabta si ay uga doodaan shir madaxeedka soo socda ee Jaamacadda Carabta. Ugu dambeyntii, waxaa la gaaray heshiis u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan si loo soo afjaro colaadda ka taagan Bariga Dhexe. Sidoo kale, labada dal ayaa weli wada hadallo waxa uga socdaa ama aan hirgelin waxa uga socdaa dalka Switzerland, taas oo garwadeen ay ka tahay dowladda Pakistan.
Iiraan iyo Maraykanka ayaa midba midka kale isku eedeynaya inuu jebiyey heshiiska xabad joojinta isla markaana ay weeraro isweydaarsadeen iyadoo gantaalo dhowr ah dowladda Iiraan ay ku garaacday dalalka khaliijka saldhigyada uu kaga leeyahay Maraykanka. Maraykanka qudhiisa ayaa markab iyo sidoo kale raadarada iyo sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn weeraro oo ekeeyey dalka Iiraan.